19 bishii Diseembar 1919 waxaa magaalada Taleex loo geystay duqeyn aan meel loo deynin iyo xasuuq kaasoo ay geysteen ciidamada boqortooyada Ingiriiska. waa maalin suntan dhammaan ummadda Soomaaliyeed in la xasuusnaado inaga mudan. goor subaxa ayaa xarumihii daraawiishta loo soo diray dayuuradaha dagaalka ee Ingiriiska kuwaasoo tiradoodu lagu sheegay inay ahaayeen 6 diyaaradood oo nooca dagaalka ah. mar qura dabka saaray dhammaanba goobihii ay ku tuhunsanayeen inay daraawiishtu ku jireen. in halkaasi ay ku naf waayeen dad tiro badan oo xoolo iyo geel iyo ari iyo looba leh iyo waliba magaaladii oo dhulka la simay gabi ahaanba waxa barakacay. maalintaasi waxay ku guuleysteen inay dhulka soo dhigaan mid ka mid ah 6 diyaaradood ee duqeynta geystay. dayuuradaha waxa kaliya oo loo diri jiray goobaha boqortooyada Ingiriiska oo aragto inay khatar weyn ka soo fooleedahay. sida aan loo socon ciidamada isbahaysiga ee Ingiriiska, Xabashida iyo Talyaaniga iyo daraawiish goob ahaan badan foodo isku direen hoog iyo halaag darro ayay kala kulmeen Ingiriiska. garabkiisa dagaalka aadka loo xasuusto waxaa ka mid ahaa dagaalka Ruuga ama dhul madoobe. waa dagaalkii daraawiishtu ay ku dishay Coofil. waxay ka qortay taariikh Kanadiya lagu magacaabay buugiisa London 1909 waxaa dagaalkaasi ku tilmaamay mid xaalad adag. daraawiishtu ay la dagaalantay ciidanka Ingiriiska ahaa 110 oo burco ka yimid 35 goobtii lagu dilay oo ka mid ahaayeen Coofil. 17 dhaawac xun baa gaaray 24 ka mid ahaa ciidamada Ingiriiska. daawadayaal ku xidhnaada Las Media waxaan mar walba idin soo tabin doonaa wararada idin xiiso geliya.